الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed ilmaheedina ay ku xiran yihiin Hindiya waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliyeed inay caruurta Soomaaliyeed u beer dulcaan oo ay maxay tood bini aadanimada fiirshaan oo xuquuqda bini aadamka hay'adaha u dooda ay maxay tood wargeliyaan oo ay hadlaan maxaa qaata damiirtii Soomaali lagu yaqaan maxaa ku dhacay waxa weeyaan wiilashayadu horta alla leeyihiin hadday geeriyoodaan iyo haddii ilaahay badbaadsaba alla leeyihiin laakiin magac xumo ayay u tahay Soomaaliya waana mid dhacarsan doonta ibidkood dhibaatada hayda ilmaha Soomaaliyeed oo ku xiran Hindiya waxa lagu qabtay badooda Soomaaliyeed ayagoo kaluumaysata ah oo ka xeebsanaya baahi u geeday inay muluxyadooda dabtaan waxa uu yimiday dawladda Hindiya ayaga ka kordhagay oo xambaartay dabadeedna wadankoodii bay geysteen waxay u xiran yihiin muddo 6 sano ah intaas ayaan la arag dawlad ka hadashay iyo maxay dadweyne dooday oo Soomaaliya damiirtii waxa ka qaaday waan la yaabanahay hadda ayaa la dul saaray mididii lagu dili lahaa caruurtayada waxaan doonaynaa Soomaaliya inay ka damqadaan meel kasta oo ay joogaan dalka iyo dibadda waxay abuuri doonaan cadaawad dhaxmarta Hindiya iyo Soomaaliya dhaxaltooyana u noqota in badan waxaan doonaynaa haddii islaan jiro waxaan doonaynaa caruurtayada in aan nalaga dilin oo la badbaadso ilaahay baa wax dila oo wax dili kara laakiin maxay tood maanta dhawaaqan yeeray mid aan ku faraxsanahay ma ahan caruurta Soomaaliyeed hooyooyinkii dhalay iyo aabayaashii dhalay in badan ayaa waxa u dhintay dhiikar iyo sokor waxa kamida walaashay aniga oo daadiga yareeda oo la yiraahdo Khadiija Maxamuud Bare wiilkeedana la yiraahdo Asayr Cabdixafiid Cabdullaahi Xaaji waxay u dhimatay dhiikar iyo sokor ay ku qaadatay xariga wiilkeeda aniguna waan ku siganahay oo waxa la iga helay dhiikar waxa ii dhiman tii aan ku geeriyoon lahaa maadaama walaashay bil bay moortantahay la yiri wiilkii haddana waa dil toogasha la yiri caruurtii oo la dhashay ay dal iyo dibadba oo yaayaan waxaan la ooyay dhibaatada hayda walaashay caruurteed waxna aanan ka qaba karin waxaan doonaynaa Soomaaliya meel kasta oo ay joogaan in wax laga qabto waxna laga dhaho haddii ilaahay baa wax badbaadiyo wax uun la badbaadi karo haddii la badbaadi waayo waxa imaan doonta cadaawad aad iyo aad u qodo dheer dhaxmartana Soomaaliya iyo Hindiya waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya in ay wax ka bedelaan damiirtooda fooshaxun oo caruurtayada lagu dul jiifo habeen iyo maalin waxna aanay ka dhaxayn haddii ay tahay madaxweyne haddii ay tahay maxay tood wasiiro haddii ay tahay ra'iisul wasaare Soomaaliya Soomaali baale way beenowday ninkii caruurtiisu ku jirta waxna ka dhihi kara wuu ka dhihi lahay war maanta haddaan wiilkaaga ku jir bari bay ku imaan kartaa waana mid ku taala oo ku dhacsan doonta ogaanteed lahaw Soomaaliya meel aad joogtaba yaa hal laga diiro dhibka jira oo haysta caruurta ku xiran Hindiya iyo meel walba oo ay ku xiran yihiin caruurta Soomaaliyeed hal loo helo hay'adaha bini aadanka oo xuquuqda bini aadanka u dooda hal la wargeliyo hal loo doodo caruurtayada Soomaaliyeed meel walba oo ay ku daayacan yihiin waxaan doonaynaa in laga hadlo ayaan doonaynaa magacaygu waa Faadmo Maxamuud Bare waxaan doonayaa in laga hadlo oo maxay tood la helo Soomaali isku mid ah oo u dooda maxay tood caruurtayada oo meel walba ku daayacan waxaan u sheegayaa dawladda waxaad u kala ordaysaan doorasho maxaad doorataan maxaa dadnimo ah oo idin yaala waxa weeye waad aragtaan caruurtiinni meel walba oo kamida maxay tood adduun weynaha waxa ku dilan kuna daayacan ama bad ha ahaato ama bari ahaatee caruurtiinni
warhoy waxaan dooran doonaa haddii ilaahayga weyn oo waaxidkaahu ou idmo ninkii ka hadla carruurta Soomaaliyeed dhibaatada haysa maanta ayaan dooran doonaa haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed